munaasabada lagu shaacinayay tartanka koobka xidhiidhka ciyaaraha Soomaaliland oo ka qayb gali doonaan kooxaha heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad oo ay maalgelin doonto shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaana munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xidhiidhka ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliland waxayna ka warrameen inuu tartankan yahay tartankii ugu ballaadhnaa ee xidhiidhka ciyaaraha Soomaaliland qabtaan kana qayb galayaan kooxihii ugu tirada badnaa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaan nahay xidhiidhka kubadda cagta tartan markii koowaad Soomaaliland ka qabsan doona taariikhda tartankaasoo noqon doona tartan ay ku tartami doonaan 2 naadi oo ka dhisan guud ahaanba dalka. tartankaasi wuxuu noqon doonaa tartan ku tartami doonaan 28 naadi oo ka socda caasimadda oo kala ah 10 heer koowaad, 10 heer labaad iyo 8 heer saddexaad. waxaa kaloo iyaguna qayb ka ah caasimadaha naadiyaha ka imanaya caasimadaha oo ku ciyaar doona magaca dowladda hoose Berbera, Boorama, Laascaanood iyo Ceergaawo. tartanka haddaan si kale u dhigno wuxuu la mid yahay tartamada ka dhaca horyaalada sida horyaalka Ingiriiska oo kale tartanka ay qabtaan ee FA Cup la yiraahdo. tartanku wuxuu si official u bilaabmi doonaa 26 June sanadkan 2018 maalin Salaaso ah ayuu bilaabmi doonaa insha Allah taala. tartanka si toos ah ayuu uga bixi doonaa TV-yada oo loo baahin doonaa. waxaan runtii aad ugu mahadnaqaynaa xiriir ahaan dhowr shirkadood oo ta koowaad ay tahay Telesom oo ah shirkadda runtii maalgelinaysa sanadkan iyo sanadka ku xigaba. Cabdiwahaab Maxmed xidhiidhka dadweynaha shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa ka warramay faa'iidooyinka ay kubadda cagtu u leedahay dhalinyarada reer Soomaaliland. waxaan u ballan qaaday in shirkadda Telesom ay maalgelin doonto tartankan iyo tartanka sanadka soo socda haddii Allah idmo. waxaan u sheegay in shirkadda isgaarsiinta Telesom ay garab taagan tahay dhiirigelinta dhalinyarada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. sharafna anaga shirkad ahaan Telesom inuu maalgelinay tartankan oo sponsor garaynay anagoo ka duulayna مسؤولية واجب كنا جسارن ومضيّدة جارهان دليل هذا سوق كريسة حيسيسة أما عيار تبى كوبد عكت طبعا كوبد عكت وعيار دنيا عنكا وعيار دنيا كهر مرته وعيار هدي النجس هو بحان رد دنيا كعيارة أيدل كان اعتراف وين سوق كردين كران مركاين لصو صاروا رجي دنيا كعيار لها مقعد الدنيا كسوق بحلها النادي الدنيا يو كعيار لها جوابها الدنيا كعيارتين تبا وحوي واجب إنه ورصارين صو صارنا دلنيرادنا waxa laga rabaa inay waqtigooda geliyaan inay si ixtiraam leh oo akhlaaqda ciyaareed ku dheehantahay u ciyaaraan tababarayaashoodana waxa laga rabaa inay baraan qawaaniinta iyo xeerarka ay leeyihiin ciyaaruhu iyo kubadda cagtu si aynu noqono ummad dunida wax la qaybsan karta dunida wax ku soo kordhin karta waa inaynu dunida isku daynaa inaynu wax soo kordhin karno ما هي إنه آمن سنانون مركز تين النقطة ضد محمد خضر داهر وكسر شركة كلرسوم وإسلام مدرسة شاسكة هذلي عيا كور رمي فائدين كوترتن كانوا يلان دون دليل يرد الهرس مالنا وحيلتي ما أنت وابر بلو وناكسن وحنقودنا كوب كني إنه نقطة كوب سنة والبا قبصوما agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Cabdikariin Xuseen Siciid oo madashaasi ka hadlay ayaa shirkadda isgaarsiinta Telesom uga mahadnaqay maalgelinta ay ku sameysay tartankan ay ka qayb galayaan kooxaha heerka kala duwan ee dalka. waxaan u sheegay in wasaaradda ay garab taagan yihiin sidii uu tartankaasi u noqon lahaa mid taabagala ayna uga soo bixi lahayn dhalinyaro magaca Soomaaliland gaarsiisay dunida inteeda kale. annaga wasaaradda waxna ogaan in maxay ahayd sanad walba ay u socdaan ciyaaruhu si loogu talagalay balantii madaxweynaha ay ahayd maxay ahayd in la socodsiiyo dhalinyarada maxay ahayd ciyaarahooda iyo maxay ahayd loo dadaalo annagu halkaas ayaan taaganahay inaanu balantahay aanu maxay ahayd fulino waxa aanu mar walba leenahay koobka iyo koobka laba diyaar bay wasaaraddu inay u qabato dhalinyarada aad waxaan ugu mahadnaqaynaa maxay ahayd shirkadda Telesom oo kaalin weyn ka qaatay koobkan oo inuu socdo koobkan maxay ahayd noo suurta gelisay aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. Xabsi Ciidid telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.